iyadoo guud ahaanba dacalada dunida maanta looga dabaaldegay isla markaasina lagu oogay ciida barakeysan ee ciidul fitrida ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar iyo guud ahaanba dadweynaha ku dhaqan gobolkani waxay si ballaaran u oogeen tukashada salaada ciidul fitrida dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar oo sida shacabka muslimiinta dunida oo kale soo soomanaa 29 cisho ayaa maanta waxay isugu hambalyeynayeen dhamaadka bisha barakeysan ee Rabadaanta iyo waliba dabaaldegga iyo tukashada ciida barakeysan ee ciidul fitrida warbaahinta qaranka Soomaaliland oo saaka waa berigii hore u qaadatay kurgalka xaaladaha iyo jawiga ciida ay ku jiraan shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba iyo guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar ayaa waxay indhahayagu qabanayeen dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Caynaba kuwaas oo ku leebisan dhar aad u bilicsan isla markaasina daadahaynaya kuwaas oo lagu soo qalabeeyay aaladaha kala duwan ee caruurta lagaga farxiyo aanu mikrofoonka halkaas la dhex qaadnay isla markaasina aan ku weydiinay salaamaha iyo sidee ugu faraxsan yihiin ciida barakeysan ciidul fitrida iyo salaamaha iyo tahniyadaha ay hawada isu marinayaan magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Ducaale waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland especially kuwa u dhashay gobolka Saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka Axmed iyo marwadiisa waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland noocyadooda kala duwan iyo gaar ahaan taliyaha laanta socdaalka iyo dhammaan shaqaaleynaha ama ciidanka laanta socdaalka oo aan aad iyo aad u salaamayo iyaga especially waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa si khaas ahaan waxaan kaloo aad iyo aad iyagana u salaamayaa dhalinyarada iyo dadweynaha kale ee ku nool dal iyo dibad jooga ee ku nool gobolka Saraar especially degmada Caynaba bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sidaam Jaamac Warsame waxaan ahay qolo ka tirsan bahda caafimaadka gobolka Saraar halkan waxaan salaan iyo tahniyad uga dirayaa muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaar ah uga salaamayaa familygayga qaaliga hooyaday Aamina Maxamed Axmed iyo aabahay Jaamac Warsame Xirsi Jaamac Yare iyo dhammaan walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan magaaladii Caynaba ku ciido maanta oo igu horeysay awal mar fi taariikh aan ku ciido shacabweynihii gobolka Saraar aan la soo ciiday aad iyo aad baan u salaamayaa reer Caynaba waxaan anigoo magacaygu yahay Shaafiic Ali Ibrahim ahna ganacsadayaasha ugu tunta weyn gobolka Saraar waxaan ciid iyo hambalyo iyo farxad u diraya dhammaanba shacabweynaha ku kala gadisan ee ku nool gobolka Saraar waxaan leeyahay ciideeda kale Ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo anigoo ah Xamse Xasan Xaaji Cali waxaan halkan maanta oo tahay maalintii ciidul fitrida aan halkan ka salaamayaa dhammaanba ummadda islaamka meel ay joogtaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo halkan ka salaamayaa shacabweynaha Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa waxaan halkan isna aad iyo aad uga salaamayaa saaxiibkay Jaamac Dacade oo aad uga shaqeeya horumarka gobolka ugu dambeyntiina kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax iyo maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf ayaa waxay hambalyo iyo salaan hawada u mariyeen guud ahaanba shacabka ku dhaqan gobolka Saraar iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ugu hambalyeeyay ciida barakeysan ciidul fitrida ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan salaan aan kaga faa'iideysanayaa inaan salaanta ciida u diro dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nooshahay waxaan Ilaahay uga baryayaa bishii Rabadaan fadligeeda iyo dambi dhaafkeeda in Ilaahayna siiyo waxaan kaloo halkan salaan uga dirayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwada qaranka waxaan kaloo halkan aan salaan maanta u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka ee dantayada ugu jira ayda ee dantayada xuduudaha u jooga ee dantayada dhaxanta iyo dabeysha u jooga Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay dambi dhaaf idin siiyo waxaan kaloo halkan aan salaan uga dirayaa dhammaan shacabka gobolka Saraareed waxaan leeyahay caafimaad qabku ciida ciid mubaarak halkan waxaan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi caalamka meesha ummadda qof islaami jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo taa mid la mid u dirayaa ummadda reer Soomaaliland
meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay bashbarshiyo barwaaqo sanadkaa sanadkiisa ayna ku gaadhsiiyo isku soo wada duuduubo ciidda barakaysan ee ciidulfitrida ayaa si ballaaran looga oogay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyo guud ahaanba deegaamada gobolkan uu ka kooban yahay iyadoo si nabadana ay dhammaanba xafladahaasi iyo oogastaasi ciidulfitridu ay ku soo dhammaatay jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.